waxaan ku suganahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska mudane David Cameron oo lagu soo casumay Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo nin daayar oo hadda ka hor TV-ga Universal uu barnaamijyo ka sameeyay Cabdiraxmaan ayaa waxa uu yahay nin baahi gaar ah qaba oo xubnihiisu aysan u dhamaystirnayn laakiin maskaxdiisu si cajaa'ib ay u shaqeynayso iskuulkana meel sare ka jooga doonayana inuu tiigsado waxbarasho sare haddaba casuumaaddan ayaa waxaa iska kaalmaystay ama si wada jir uga soo shaqeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron iyo waliba maamulka TV-ga Universal oo si wada jir arrinta u soo qaban qaabiyay Cabdiraxmaan ayaa markii uu halka yimid waxa loo soo dhaweeyay hooyadii iyo waliba walaalkiis si aad iyo aad u qurux badan iyadoo loo ogolaaday baabuurkoodii khaaska ah ay wateen inuu ka soo galo albaabka weyn ee madaxdu ay ka soo gasho halkaas oo lagu soo dhaweeyay baabuurkiisina gudaha ula soo galay isla mar ahaantaana loo dhaadhiciyay gudaha si heer sare loo soo dhaweeyay halkaasna uu kula kulmay madaxda sare ee dalka Ingiriiska waxa la siiyay hadiyad qaali ah oo aad iyo aad ugu farxay Cabdiraxmaan oo si wanaagsan uga mahadceliyay asaga iyo hooyadii iyo waliba walaalkiiba. So Abdurrahman, thank you so much for coming to number 10 today to Downing Street. I hope you enjoyed the visit with your family. Seeing all those historic artifacts and going back through the years must have been incredible. I'm delighted that you enjoyed the day. I've heard about your work with the Somali community and reaching out and being a real inspiration to other disabled people and people with disabilities, Somali and other non-Somalis. And we wanted to present you with a special award because of your work that you've done with the community. It's a special achievement for outstanding work in the Somali community and around the world. And it's dated 2013 to 14, and that's just for you. A very well-deserved award for all your work that you've done, and I wish you all the success in your ambitions of being a UN disability ambassador. Okay, but thank you so much again for coming, and I hope you enjoy the day, and you're welcome back anytime. I want to say thank you for having me at number 10 Downing Street. Thank you, you're welcome. You're welcome. ومحسنين and Universal TV and the people of the number 10 Downing Street and madaxweynaheena Prime Minister ka and dadka kale oo soo dhaweeyay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ya Cabdixaafid oo meesha nagu soo martiqaaday hadayna asaga ahayn meesha ma imaan lahayn marka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shahaadadan Cabdiraxmaan la Gudoonsiiyay insha Allah ta'ala aad ugu farxeynaa insha Allah wa Cabdiraxmaan achievementigiisi marka aad iyo aad ugu mahadcelinayaa always waa garabkiina nahay waa nala shaqeysaan Cabdiraxmaan iyo annagana idinka wax ku idinku nahay aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sidaad arkaysaan Cabdiraxmaan ayaa halkan waxa lagu siiyay hadiyad number 10 Downing Street oo siiyay Alistair Campbell oo nala jooga oo asagu waxa dadkii ka soo qaban qaabiyay xafladan wax weyn arintan ayaa Cabdiraxmaan aad iyo aad u dhiirigelisay iyo qoyskiisa wax lagu farxana ah waana ninkii ugu yaraa taariikhda intaan ognahay dawladda Ingiriisku ay soo casinto asagoo waliba kursigan ku fadhiyay haddana isla mar ahaantaas xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo siiyo hadiyad qaali ah